السلام عليكم. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena xikmadaha. waxaanu ka soo xigeynaa buugga 707 xikmadood oo qoray Cabdirasaaq Xasan. waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Abubakar Akhtar. markii aad aragtid in runtu ay dadka qaar ka caraysiinayso, xaqiiqso inay aamusnaantu tahay xikmad. kelinimadu waa inaad weydiiso sheekada qofkii aad jeclayd. shimbirku maanta ku taagan yahay ma kala jecla inay la jabto iyo inaanay la jabin, maxaa yeelay wuxuu ku kalsoon yahay barashiisa. si aad u noolaatid, odayaasha ka qaado caqli, carruurta ka qaado niyad wanaagga, fuqaradana dulqaadka. markii aad faraxsan tahay, waxaad aadaa qofka aad dadka ugu jeceshahay. markii aad murugaysan tahayna, waxaad aadaa qofka dadka kuugu jecel. inaad jeclaatid deganaanta, inaad iska indhatirtid daalka, inaad isku kalsoonaato, inaad u tanaasusho doqonnada, inaad hadalka yaraysid, inaanad waxba xiisaynin. intaas oo la isku daray ayaa la dhahaa korriin shakhsiyeed. marka ay noloshu ku siiso hal sabab aad u quusato, waxaad adiguna siisaa 1000 sababood hawlaha ku sii wadan kartid. maxaa yeelay ma jiro wax ka xoog badan arlada dusheeda doonista insaanka. runtu waxay dhibtaa kuwa caadaystay inay beenta marmarsiyo u sameeyaan ilaa laga rumaysto. marka ay ku leeyihiin ma samayn kartid, waxay ka hadlayaan awooddooda halka ay ku eg tahay ee kama hadlayaan awooddaada. haddii aanad adigu dhisin riyooyinkaaga, qof kale ayaa waxa uu kaa shaqaalaysiin doonaa inaad riyadiisa la dhistid. sharcigu waa inuu ahaadaa sidii geerida oo kale, taasoo dadku wada siman yihiin. ragga runta ah ma sugaan sannado gaar ah si ay raginimadooda u muujiyaan. waxay dhashaan iyagoo raga. haddii aad si gaara ila taliso waad iwaanisay, haddii aad dadka hortooda igula talisana waad ifadaaxaysay. si aad u dhoola caddaysid maaha inaad farxad sugtid, ee waa inaad dhoola caddaysaa si aad u farxdid. waxaan xiranayaa okyaalihii ayeeday si aan u arko dunidu siday ahayd xilligeedii. baqaylku wuxuu dhimanayaa baahi, ilmihiisuna waxa u dhimanayaa daaca qurun. shalay waxaan raadinaynaa xornimo, maantana waxaan raadinaynaa jacayl, berrina waxaan ka cabsanayaa inaynu bini'aadamnimada weyno. boos uga hel naftaada figta sare, meelaha hoose waxaa jira ciriiri badane. qofka raadinaya sinaan waa inuu quburaha aada amba booqdo. libaaxu wuxuu dhimashada ku leeyahay sharaf uusan aygu nolosha ku lahayn. hantida iyo dadka uu rabisiiyey waxay u qaybsamaan 3: inay u taallo waa nin sadaqaystay oo aakhira ugu horrayso, iyo nin ay ku taallo waa nin ay ka muuqato oo ka xaragoonaya, iyo nin ay ka taallo oo ah nin ay bangi ugu jirto kana xaragoonay sadaqana aan ka bixin. inaad dadka la cafiso macnaheedu maaha inay u qalmeen in la cafiyo, balse adiga ayaa u baahan nabadda iyo deganaanshaha. inaad ku fahanto wixii tegey kuma damaanad qaadayso inaad mustaqbalka wax noqon doontid. maxaa yeelay sharciyada ciyaaruhu waxay isku beddelaan si joogtaa. ninkii dhahay saboolnimadu ceeb maahayn wuxuu rabay inuu hadalkiisa sii wato oo uu yidhaahdo waa dembi, balse kuwa hantiilayaala ayaa hadalkii uga jaray sacab aan kala joogsi lahayn. gabar ha weydiini daadeeda, ina ha weydiin mushaharkii, ardayna ha weydiin natiijada imtixaanka, dowladna ha weydiin waxqabadkeeda. haddii hodannimadu ay tahay natiijo ka dhalata shaqo badan oo la qabto, hooyo walba Afrikaan ayaa noqon lahayd milyaneer. cadaalad kama rabno waddamadeenna, leen kama helaynee. waxaynu dalbanaynaa in dulmiga xataa laynoogu qaybiyo si cadaalada. haddii aad doonaysid inaad farxad ku noolaatid, ha ku dheeraan duudaha dhacdooyinka ha fasirin. maxaa yeelay luulku waxaa la helaa isagoo dhuxushuugeeg. dad badan ayaa taabanaya qalbigaaga, kuwa yar ayaa gelaya qalbigaaga, balse hal qof ayaa degaya. markii aan hadlayno dhammaanteen waxaan nahay dad mabaadii leh. markii ay waxqabad timaadana waxaan nahay dad dano leh. dhibcida biyo ah haddii ay si joogtaa dhulka ugu dhacdo, god ayay qodi kartaa, balse baaldi biyo u buuxa haddii hal jeer dhulka lagu shubo god ma qodi karo. baro in ku celcelinta ficilka wanaagsan ay tahay bilowga guusha. alla ka cabso intii awooddaada ah.